يسعد فؤادي كلما ذكر العيد ترنما ذاك الذي رب العلا أهدى لنا وأنزلا يسعد فؤادي كلما ذكر العيد ترنما ذاك الذي رب العلا أهدى لنا وأنزلا نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للجهل سار مبدلا نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للجهل سار مبدلا للجهل سار مبدلا ذاك الذي رب العلا أهدى لنا وأنزلا كالنور في جنح الظلام جاء العيد إلى الأنام فرحا يزيل حزنة وكأنه بشرى الزمان كالنور في جنح الظلام جاء العيد إلى الأنام فرحا يزيل حزنة وكأنه بشرى الزمان فرحة كل العالمين مرتين تزورنا والله جل جلاله يثنى عليه ويعبد فرحة كل العالمين مرتين تزورنا والله جل جلاله يثنى عليه ويعبد يثنى عليه ويعبد يسعد فؤادي كلما ذكر العيد ترنما ذاك الذي رب العلا أهدى لنا وأنزلا يسعد فؤادي كلما ذكر العيد ترنما ذاك الذي رب العلا أهدى لنا وأنزلا نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للجهل سار مبدلا نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للجهل سار مبدلا للجهل سار مبدلا ذاك الذي رب العلا أهدى لنا وأنزلا أهدى لنا وأنزلا وطيب فيصل عسير أدو مهنسية هاي وإلى دادهنا يا برامج كالعيد كاميرا تيفيقة صومالي channel طبعا برامج واوسي سعودة وحاس جرتاق يا ركلة وطبعا استوديوها هاتن نقول السوغان وانا هيدين سوغو بين دونه سلامه هذا لكنسه halka kan caruur si qurux badan u ciiday ayaa ila fadhida oo aan jecelahay inaan weydiiyo bal sida ay u ciideen magacaaga xamsa aabahana Cabdiqaadir waa gartay xamse Cabdiqaadir see u ciiday wallahi waa si qurux badan mada ciid wanaagsan bay ahayd ciidii kale ka fiican bay ciid weyneed markaas farxad weyn marka si wanaagsan baa ciid leedahay ya salaam saaxan dadka oo dhan oo muslimiinta Soomaalida oo dhan kaaraha Soomaalida iyo waalidiintay
walaalahay iyo hooyada iyo aabahay dadka oo dhan baa salaamay waalidkay oo dhan waxaan leeyahay ciid wanaagsan waa tahay haye magacaaga adigana magacaygu waxaa waaye maxamuud faarax maxamuud see ciidi si fiican haye waaka maxaa ku farxad geliyay ciidan oo samaysay wax fiicana sameeyey haye waaka yaa salaamaysaa walaalahey hooyada waalidka iyo soomaalida iyo Soomaali Channel waa tahay magacaaga adigana أحمد أياله haye axmed ayaa le see ciidi سوى ناكسن haye سفح حاضري waa gartay yaa salaamaysaa waxaa salaamaya dadka muslimka oo dhan iyo gaar ahaan Soomaalida iyo hooyaday waalidkay dadkaas oo dhan ciidan iyo Soomaali state ciidan ciidi kugu horeysaa may inta yaraa dhan Saudi waa ku ciidaysa laakiin Nairobi wax ku ciidaystay ciid بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa maxamed aadan cabdi oo ku magac dheer maxamed dhubad halkan waxaan uga hambalyeeynaya ummadda islaamka ciidan ciidweynta ciidul adha dhammaan waxaan leeyahay Soomaalida iyo islaamka meel kasta ay joogaan ciid wanaagsan waxaan kaloo rabaa marka hore inaan mataqaanaa mahad iyo salaan u diro dhammaan ehelkayga iyo familkayga meel kasta ay joogaan waxaan kaloo rabaa halkan inaan jaaniskan uga faa'iideysto inaan mataqaanaa aan u diro salaan dhammaan staffka Moya International College ee ku yaala qaybtiisa Xamar iyo qaybta Nairobi dhammaan waxaan kaloo rabaa halkan inaan uga diro ardayda Moya International College waxaan leeyahay ciid wanaagsan dhamaantiin waa mahadsantihiin بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan muslimiinta dhan ee adduunka ku nool aan u hambalyeeynaya waxaan leeyahay ciid mubaarak si gaar ahaan dad bulshaweynta reer Banaadir tan dambe waxaan rabaa anigoo ku hadlaya magacayga iyo kan dhammaan bulshaweynta ku abtirsata qoomiyadda reer Banaadir oo ku sugan bariga Afrika gaar ahaan dalka Kenya waxaan jeclaan lahaa in aan hambalyo dhammaan muslimiinta adduunka ciid wanaagsan mar labaad aan iraahdo gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed iyo waliba si gaar ahaan bulshaweynta beesha Banaadir meel kasto ay ku nool yihiin dunida dhammaan xujayda eeb ugu baryaa xujayda u safartay xijka oo Ilaahay ugu baryaaya in ay si nabad leh ugu soo noqdaan meelihii ay ka caraabeen waxaan sidoo kale eeb ka baryayaa in sanadkan kiisa kale uu si wadankeena nabad ku maneysto Ilaahay waxaan sidoo kale fursadan ugu faa'iideysanayaa baaq aan u soo jeedinayo dhammaan mas'uuliyiinta beesha culamaa u diinka aqoon-yahanka siyaasiyiinta haweenka iyo dhalinyarada ee dunida daafaheeda kala jooga in ay muujiyaan dulqaad daacadnimo ku wajahan horumarinta bulshaweynta bulshada ay ka soo jeedaan si ay gacan weyn ugu geystaan geedi socodka dhismaha dalkeena oo aan jecelnahay oo aad moodid in laga dhigay sidii dad marti ku ah deegaankii aan awoowayaashan ka dhaxalnay wadankeena wuxuu soo maray ilaa iyo haddana uu ka jiraa dhibaato aadana gacnihiisa ku maleegay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين salaanka bacdi waxaan hambal u dirayaa muslimiinta adduunka ku nool khaasatan beelaha banaadiriga aan ku abtirsano anna gudoomiye aan u ahay waxaan ugu hambalyeynayaa ciid wanaagsan mar labaad waxaan halkan si gaar ah ku salaamayaa jaaliyada shaqaalaha ka shaqeeya Soomaali Channel gudaha iyo dibadda inta joogtan waxaan leeyahay ciid wanaagsan anigoo ku hadlaya magacayga iyo dhammaan
bulshooyinta beelaha banaadiriga ee ku dhaqan bariga Afrika gaar ahaan Soomaaliya guud ahaan adduunka oo dhan waxaan u hambaliyeenayaa ciidan ciideeda ilaahay naga gaarsiiyo farxad iyo reereen iyo iimaan iyo anagoo wadankeena nabad ku qabna insha Allah ta'ala biidhnillaahi al-kariim waxaa farxad leh si niyad ku dheehan uga hambaliyeenayaa ciidul adxiga dhammaan muslimiinta meel kasta ay kaga nool yihiin adduunka iyo qoysaskooda iyo bulshooyinkoodaba munaasabadan farxadda leh aan waqtigeena ugu huri lahayn kumanaanka qofood ee dulman ka kala nool ama ku kala nool gobolo badan ee dalka gudihiisa iyo dibadiisaba aan eebe ugu barino kuwa ilaahay kala nool ilaahay hanuuniyo iyo kuwa aan weliba ka indho saabsan caabudida alle macnaheeduna waxay tahay ilaahay inuu hanuuniyo insha Allah ta'ala walaalayaal aan si wadno wada shaqeynta aan kaga dul qaadayno dhibaatooyinka ummadeena Soomaaliyeed khaasatan banaadir meel kasta ay joogto inaan isu tanaasulno horta waxyaabaha qaar yaani waxaan jecelnahay dhaxdeena inaan sii saxno wixii qaladaad dhacay la isku cafiyo tanaasulaad la isu sameeyo nabadan waxaa ku jirtaa midnimo in la helo midnimo la'aanteeda nabad lama heli karo ilaahay wuxuu jecel yahay yaani wa'tasimu bihablillahi jamii'an wala tafarraqu ina anaga ilaahay xirigiisa aan qabsano oo tafraaruq aanan sameeynin aw waajib nuga ah innamal mu'minuuna ikhwa mu'miniintana waa walaalo diinan ku walaalooni marka dhaqanan ku walaalooni afan ku walaalooni waxaan jecelnahay inaan iska ilaalino waxyaabaha oo takabburka ah ama dhibka noo keeni karo waxa wanaagsan wada shaqeyn cadaaladnimo ilaaha laga hela insha Allah la is aamino yaani loo wada jiheysto sidii ummadeena aan yaani garabsi lahayn dhanka yaani waxbarashada dhanka yaani isbitaalka loo dhiso dhanka yaani caafimaadka wax loo qabto anaga boqolkiiba boqol waxaan rabnaa in ummadda ilaahay heer gaarsin kara inaan u dadaalno biidhnillaahi al-kariim waxaan rajaynaynaa tawfiiqda ilaahayna waafajiyo walaalahayna banaadiri ku nool gudaha iyo dibadda waxaan ka codsanayaa mar labaad ka codsanayaa wax alla waxay xurguf dhaxdeena jirto in meesha laga tanaasulo la isu soo noqdo walaatinimadii wanaagii wax qabadkii annaga waxaan jecelnahay waxyaabaha ummadeena aan ku badbaadi karno qof walba ummadiisa waa ordaa qol walba qoladeeda waa ordaa annagana waxaa laga rabaa ummadeena inaan meel ugu wada jeesano gudaha iyo dibadda insha Allah ta'ala marka waxaa muhiim noo ah oo annaga gudaha iyo dibadda isku duuban hadii lana helo ama aan isku duubnaano daacadnimo aan ahaano waxaa imaanaya khayr iyo tawfiiq waatahay daawadayaal weli waxaanu ku guda jirnaa barnaamijkii la ciid kamarada TV-ga Somali Channel oo dabcan dadweynaha ku dhaqan xaafadda Islii ay halkan yimaadaan oo ay heladooda iyo guud ahaanba ummadda muslimiinta gaar ahaan dadka Soomaaliyeed ay halkan taaniye iyo hambalyo la xiriirta arrimaha ciidda ay uga diraan walaal magacaa ku diro bismillaah magacaygu waa Faadima Cabdiqani Faadima see u ciidi ma sha Allah si wanaagsan xaafadda Islii oo dabcan aad ka mid tahay dadka degan sidee looga ciiday saaka hadaad aragtay oo aad tagtay goobaha lagu tukaday ma sha Allah si wanaagsan ayaa looga ciiday saaka waxaan ku soo tukaday barxadda Burhan State ma sha Allah si wanaagsan ayaan maxay loo soo ciiday marka ciidan ma ciidii kugu horeysay ayaad ku ciidid Nairobi maxay sanadka ciidanka ay duwaneed dadka qaar waxay leeyihiin dadku intiiba ka yar yihiin dadka qaar waxay leeyihiin dadku intiiba ka badan yihiin kuwa waxay leeyihiin waxay ku soo aaday iyadoo Soomaaliya ku meel gaar ka baxday oo rajadu wanaagsan tahay ciidan maxaa ku sifeyn kartaa ciidan ma sha Allah dadku aad bay u badnaayeen waxa dad yar maan arkin dadku aad bay u soo wada bixin shucuurta islaamka aad baa loo muujiyay ummadda muslimiinta gaar ahaan dadka Soomaaliyeed maxaad ugu hambalyeynaysaa oo rajaynaysaa ciidan waxaan leeyahay kullu caam wa antum bikhayr waxaan leeyahay taqabbal Allahu minna wa minkum salihul a'mal waxaan leeyahay sanadkan sanadkiisa Ilaahay nabad iyo maxay hayto caafimaad han ugu gaarsiiyo cimri dheer iyo cibaado suuban insha Allah Ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa ciidan ciideeda inuu wadankeena nabad nooga dhigo tahay hadii waxaan ku weydiinayaa hambaliyada ciidda ee salaanta yaad salaamaysaa
أولا waxaan salaamayaa guud ahaan dadka islaamka caalamul islaam meel kasta ay ku nool yihiin markii xigta dadka Soomaaliyeed iyo eheladeeda khaasatan waxaan salaamayaa hooyadii macaan Aamina Maxamed Axmed Aamina Canab iyo guud ahaan hooyadii Saharo Maxamed Axmed hooyadii Hinda Maxamed Axmed hooyadii Khadra Maxamed Axmed hooyadii Seyna Maxamed Axmed hooyadii Faadima Abin Salaman abtigay Cali Maxamed Axmed abtigay Cabdiqaadir Maxamed Axmed abtigay Cabdulle Maxamed Axmed iyo caruurtooda guud ahaan aabahay Cabdiwahaab Axmed aabahay Siyaad Axmed aabahay Yuusuf Axmed guud ahaan iyo walaalahay oo kala ah Nasra Cabdiqani Shukri Cabdiqani caruurteeda Maxamed Cabdiqani Mustafa Cabdiqani Cabdullaahi Cabdiqani Axmed Cabdiqani oo adduunweynaha ku kala nool بسم الله الرحمن الرحيم تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال waxaan aad u jeclaan lahaa maanta inaan kaga farxad qaato aayado quraan kariima أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب صدق الله العظيم